unboxing yung fadi ko noon. Lahat. Zero waxaa cash ma la dhiibaayo waa kana laakiin aan ugu soo wada kiin ugu dhiganayo wayna ama bank ku soo bixina ama EBC Perfetto. هذا ما سدينا كوا يا ما يوصل هذا ما تصدق كاشا وتي كاشا اللي قديم محل اللي يسي بس أخذ دراسة أو ما صدق هذا Perfecto, muy bien. Ok, Sam. Recién que yo estamos. Sobre المعلومات فاحنا هو اسليبي.
qofka galkiisa loo galay laakiin hadda adiga aad sameeyay qofka waa loo qabanaa meesha shariisana عدل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa maanta sharaf weyn noo ah annagoo ka jawaabayno mudnaanta koowaad oo aan siinayno adeeg wanaagsan in dadka loo qabto isla markaasna adeegga loo dhaweeyo wuxuu maanta maamul gobolka Banaadir iyo dawladda hoose xamar wuxuu maanta furayaa goobtii loogu talagalay in adeegga casriyeysan loogu qabto dadka ku nool ama bulshooyinka ku nool gobolka Banaadir oo qof walba Muqdishaawi xaq u yeeshay inuu helo adeeg hufan degdegsan iyo sidoo kale adeeg u dhow ayadoo taas laga amba qaadayo ayaan waxa maanta furnay qaybta lagu qaban lahaa adeegyadaas sida aan la soconno adeegaas maanta aan qabanayno oo aan maanta furayno waxaan ka furnay headquarterka ama xarunta aqalka dawladda hoose oo maanta aan ka diiwaan gelinay adeegaas oo laba qaybood kala ah qaybta koowaad oo ah in mudnaanta marka ugu horeysa laga siiyo maamulka dawladda iyo dadka ganacsada aan ugu baaqi doona ayagana in mudnaanta koowaad la siiyo dadka baahiyaha gaarka qabo oo ay heli karaan xafiis ee adeegga loogu qabto oo adeegga ay ka soo qaataan talabaadna waxay tahay dadka kale ayagana inay xafiis oo qaybta hoose u daadigi karaan oo adeegga looga soo sameyn karo maanta meesha aan ka daahfurnay waa xarunta aqalka dawladda hoose ee Muqdisho waxaana u daadajin doonaa oo adeeggan gaari doonaa 17 degmo ee gobolka Banaadir oo dhan ayaa adeeggan sidan looga qaadan doonaa insha Allah tacaala waxyaabaha adeegga muhiimka uu ku yahay waxay tahay adeegyadii maamul gobolka Banaadir iyo dawladda hoose xamar uu qaban jiray oo ahaa adeeg ku salaysan dokumentiyada ama waraaqadaha ayaa maanta waxaan u bedelnay inuu noqdo adeeg ku shaqaynayo systemka automatic ah oo system loo isticmaali doono tusaale ahaan qof walba oo wax sameeyo wuxuu heli doonaa rasiidkaas waxaa ka horeeya rasiidkan aan soo qaato waxyaabaha loo yaqaano boono ama number oo qofka uu goosto ama wax loo yaqaano token uu qofka goosanayo oo system ka baxsanayo taas markii qofka loo gooyay kan kadib ayadoo numberkiisa uu haysto qofka loo yeeri doonaa haddana wuxuu sii mari doonaa processkii ahaa ilaa ugu dambeyn qofka uu helo rasiidkii iyo sidoo kale shahaadadii ee shatiga kala duwan ama adeegyada kala tusaale ahaan shahaadada hadda hortiina taalo waa shahaadada oo shatiga adeegyadaas kala duwan ayaa lagu qaban doonaa isla markaas marka waxaan ku kalsoonahay in rabitaanka ummadda Soomaaliyeed hadduu noqdo mid siyaasadeed mid dhaqaale mid amni aan ku koobno maamul wanaaggaasna ugu dambeyn aan sii daadajino ilaa uu gaaro 17 degmo oo khidmad oo adeegan dadka ay ka wada helaan maamul gobolka Banaadir sida la socotaan waxaa ka go'an inuu la dagaalamo musuqmaasuqa sidaa darteed adeegan cusub ee dawladda hoose laga hirgeliyay degmooyinkana la geyn doono ee adeegan automatic ah waxaa ka mamnuuca qofka inuu bixiyo wax lacagta loo isticmaalo cash ama lacag muuqato inuu qofka isticmaalo ayaa ka mamnuuca qofka isticmaal karo waxay tahay inuu bangi lacagta ku shubo ama nambaro u gaara xadidan la xaqiijiyay oo EVC ah oo maamul gobolka Banaadir iyo dawladda hoose si toos ah u kontroolayo waxaan ugu dambeyntii rabaa inaan ummadda ugu baaqo labada baaq ee soo socoto annagoo iskaashanayna musuqmaasuqa maamul kaliya ma ciribtiro bulshada ayaa la ciribtirta sidaa darteed bulshooy muwaadinow Muqdishaawiyow haddii aad la kulanto musuqmaasuq fadlan nagu soo wargeli adigoo isticmaalaysa adeegga nambarka oo nambarka aad naga soo wacay si toos oo ah 86 52 waad arki doontaa asoo meesha ku qoran nambarkaasna wuxuu toos ugu dhici doonaa xafiiska duqa magaalada oo laga kontrooli doono qof walba oo soo sheega musuqmaasuq qofkaas oo lagu caawin doono in musuqmaasuqa la ciribtiro tilaabo sharciga waafaqsanna laga qaado waxaan naga go'an annagoo adeegga ummadda ilaalinayno isla markaas ilaalinayno
canshuurta hooyada soo dhididay aabbaha dhididay ganacsatada sidoo kale dalka maalgelinaya canshuurtooda ay bixiyaan inay xalaal ku baxdo xoolahoodana si cadaalad loo qaato annagoo ka duuleyno ayaa musuqmaasuq la dagaali doonnaa ugu dambeynna aan samayn doonnaa waxa dadka ay dhan ay wada sugayaan oo ah maamul wanaag waxaan baaqa kale ugu dambeyn u dirayaa qaybaha kala duwan ee dawladda hadday noqon lahayd dawladda federaalka ah dawladda dhexe hadday noqon lahayd ganacsatada iyo hadday noqon lahayd ganacsatada madaxa bannaan dhammaantood oo dhammaan kambani isugu jiraan waxaan idinka codsanayaa walaalayaal marna baaq idinkugu dirayaa inaad soo kordhisaan adeegga dadka baahiyaha gaarka qabo maadaama ay u baahan yihiin inay imaadaan meel kasto oo adeeggaas ka faa'iidaystaan maanta waxaad arkaysaa wuxuu yahay mudnaanta koowaad ayagaa iska leh markay imaadaan xafiiskoodii meesha ay ka soo geli lahayn iyo fasilitieska ayagaa ugu horreeyo dadka kalena xafiiskooda leeyahay marka baaqaas waxaan rajaynaya inay ka soo jawaabaan oo sidoo kalena ku camal falaan hay-adaha dawladda oo dhan meel kasta ay joogaan iyo sidoo kale ganacsatada madaxa bannaan meel walba ay joogaan iyo sidoo kale meel walbo adeeg lagu sameeya hadday noqon lahayd midka bulshaawiga waxbarashada caafimaadka iyo mid kastaba waa tusaale wanaagsan waa mudan yihiin dadkaas adeegoodana u qabanno aad iyo aad ay u mahadsan tihiin maamul wanaagsan hufnaan wanaagsan iyo wada shaqayn xalaal ah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu